marka gabdhaha waxa way xaasaska leh ragiina maxaa la dhahaa xafita wiilashana sida dayaxo kala noqda oo xaaskaaga waqti si maxaa way fikirku kordhi ya صح وبما talada wadaaga dad waxay dhahay dayaxi farxiyo dayax waxay ku caayaan ninka nacas waaye maxaa naagtas ugu yahay war idinka aqli ma qabtiinbo markuu ninkaaga kula talinayo naag wax ma uga baahnid qof dheeraad wax ma uga baahnid tala kale qof ma uga baahnid ana alxamdulillah waxa way ani sirteeda iyo taladeeda iyo wax kas dayaxi ku jirtaa aynu waana hubaa ani markii dayax aan fikir kasta asi kala tashanayo marka fikir kasta asi weydiinayo markas wuxuu iga siinaa fikirka iyo talada meesha ugu fiican isaga sidoo kale because I love you marka waxaa mutaqaanaa adiga marka xaaskaaga wax qabanayso markay ganacsi sameynayso marka adiga kulay wax iyada maxaa la ii sheeg marka iyada sameynayso wax iyada u gaaray marka sameynayso adiga xil weyn ku saaran waxa ku qasbantaa marka inaad maxaa la ii sheeg marka waxa ku qasbantahay ina xaaskaaga ama qofkaaga kala taliso meesha ugu wanaagsan meesha ugu quruxda badan meesha markay baridada hor istaagto ama waxay iyadu leedahay bandhigto meesha la dhihi karo yani la dhihi karo oh my goodness wax wanaagsan ee qoftaan wadaa marka ma sha Allah tabarakallah taas aan waajibkayga u arkaa wax aan maxaa la ii sheeg aan asxaan ku sameynayo ma arko marka waxaana kalifahay waxa waa isku soo dhawaashaha iyo wanaaga iyo farxadda iyo jacaylka aan iyada u qabay iyo waxa naga dhaxeeyo maxaa la ii sheeg marka raggan waxaan kula talin lahaa dhalinyarada especially dhalinyarada inay maxaa la ii sheeg sidaas oo kale ay dadkooda ama maxaa la ii sheeg xaasaskooda u garb istaagaan anigana de waaba kana waa jeclaan xaaskii maasha Allah waxna inay iska halaabeen adduunka inta aan u joogo wixii la doono hadda laakiin in waxba ka halaabeen amisana 100% waa sax waxa way ninka ragga lagu sheegayo ninka aqliga leh ninka kartida leh ninka reerkiisa ka adag waa ninka xaaskiisa wanaajinayo la tashanayo wax kasta u sheegayo fiiris Soomaalida dacaadoodu waxay tahay gabadha bis waa la soo guursada ilmaha laga dhalaa gabadha waxa waaye akoonka waa laga qarsadaa sirta waa laga qarsadaa wax kasta waa laga qarsadaa hantida ninka uu helnaa kale ku raadiyaa laakiin xaq waxa iska leh xaaskaaga awlaad ugu horeys ku dhashay of course waxa maanta heshiid wixii meel ku kala dhigma karo waxa ku qasbantaa inaa noloshaada ku dhistid aad marka ma aragtay ninka ragga wallahi ninka naxariista badan waa nin horta fiiri ninka ragga inuu waxa la cadawgiisa wixii xun inuu adkaado waa sax laakiin ninka xaaskiisa inuu jiljilicsanado waa waajib sababtoo xaaskaaga aad inta ku sameynayso xad ma lahan maxaa ku soo haray awlaadi ku dhalay guriga ku maamule waxa waa ii sheeg shalay hooyadaa la noolay shalay hooyadaa la joogta laakiin maanta agteeda joogtaa marka xaaska ayada laftirkeeda waxay leedahay mudnaan leedahay marka gabdhaha waxa in la qadariyo madax la saarto la ixtiraamo la xushmeeyo aaday u fiican tahay ninka duceysanaan isku dhaqmo wallahi صح وبما waxa way nimanka dhan hadda waxay dhahaan anaga afarnaaga noo bana anaga afarnaaga soo xaq aadileysin xad malahan markii shalay gabadhas guursanaysay waxa sameeynaysiin lacag yar ku soo raacay ama hanti yar maanta marka baahiyo kugu sabrayso ku dul qaadanaysay dulqaadkeedaas iyo aamusnaanta ay aamusanta ay ka xishoonaysa isleedahay bari wuxuu hagaagayeen bari waxila bari insha Allah la khayr inta leedahay marka wax heshiin waxa sameeynaysiin lacagtaas iyo waxaas ay heshiin gabadhi ma ku qurxinaysaan oo qof kala keenaysiin aamusnaanteedii kaga dileysaan waxa u roonaanaysa markii baahida iyo dhibaatada lagu noolaa aad waxa waa hadhow marka waxa dhaceyso gabadhii inay shalaysay shalay maxaa u sabartay bal wallahi waa dhacay waa arkay wallahi billahi waxa arkay gabdho dhahayaan isheeg maxaa shalay ina u sabro wallahi ma ahayn shalay aad u soo dhibaatooday maanta marka wanaag ka sugay maanta waxaas uu igu sameeyay godobna ma harta xaaskaaga qof isla dhaxdeen guri isla seexateen taas waaye marka raganimada ma ku jirto in xaaskaaga aa u adkaatid wallahi raganimo taas ma la dhaho kaas nin rag ma ahan ana hubo nin rag ma ahan ninka naagtiisu aad adag waxa waaye nin ragaad waxa la dhahaa ninka reerkiisa u dabacsan nin ragaad waxa la dhahaa ninka xaaskiisa daqiiqad yarta uu ka maqan yahay murgoonayso ee dhaysan wuxuu kaaga tagay banaanka duu shaqo waxa uu aaday ka murgeyso laakiin nin inuu joogo inuu maqan yahay kala jecleen kaas nin ma ahan nin aan naxariis lahayn nin ma ahan ma fahanteen maxaa ku saharay gabdhahan shalay maxaa waaye gabadhan shalay waxay kaaga soo tagtay hooyadeedii kaaga soo tagtay walaalaheedii kaaga soo tagtay gabar qurux badan ay ahayd inta soo wiilal ay jeclaayeen intaasoo maxaa la dhahaa wiilal maxaa la dhahaa ka daba ooyin jireen waxaa laga yaabaa maalinkaas aad soo guursatay ilaa ay maalinka xumeynaysa inuu jiro wiil aad u jecel oo wili joogo bal ka waran aa ka soo wadatay
صح waa gabar waxaa laga yaabaa kabaran habeen iyo maalin hooyada la seexan jirtay iyo walaalaheed la farxi jirtay la qosli jirtay inaadna habeenka tagtay oo kasoo dhexdid ee kaligeed iska murugooto amrugu ku nooleysay ilaahay afar waa baneeyay sax waa ilaahay afar wuu baneeyay laakiin waxa waa ilaahay waajib ka dhigin haddana صح waa ilaa boqolka ilaa hadaadan guursan naara gali lagu aad marka ragga ma aragteen oo xaasaskooda xumeynaayo ragga maxaa la dhahaa ii sheegeen gabdhaha xumeynaayo wax kale ma ahan waa nimanka nacasiinta aan aqliga qabin fadhi ku darray fadhiyaan banaanay iska fadhiyaan waxa way qaarkood xaasaskooda ka sheekeynayaan yani fiiri waxaa dhacda hadda gabadha mararka qaar wallahi xaamilay noqon kartaa walacay noqon kartaa gabar qofti ah oo ilmo dhashay way dareemaysaa xaaladda uurka fiiri ninka markii laga rabo gabadha xaaladaas ay isqurxin karin xaaladaas ay yani wax cuni karin ee wax fiican sameyn karin ee maxaa la dhahaa ii sheeg waxay sameynayaan ee ka tagayaan waxay leeyihiin guriga nervous ku soo noqday gabadhii ay waxa way howl ma qabanayso wax ma sameynayso warnacaso way la dagaalaysaa maalintaas laga rabo inaad naagtaada aad caawisid maalintaas laga rabo fiiri inaad quruxda aad isqurxi isnadiif labiso hoosh inaad ka qabatid maxaa dhacay maalintii dhasho waxaa laga rabaa xaaskaaga inaad dhiigeeda aad dhaqdid because cunugaagay dhashay yaa cunug kale ma nin kale cunugiisa ma wado cunugaagay dhashay صح marka waxa waaye nin kasto nacas ee waa kan nansaniska waxa yani aan fiican aan ku hadleenin marka waa kaasa dayax nimanka ku mashquulsan dayax nimanka dhahay dayax waa sidaan dayax waa nacas dayax hadaa maalin gaari laheedan wallahi heera gaari laheedan ana taas hubo because fiiri dayax waxa waaye sida saxda ah reerkiisoo dhan wuu uroon yahay waalidkiisna baari uu yahay gurigiisna baari intee laga helaa wiilsas ah ma la helaayo muho marka wax caaytamaayo fiteeda kaleeto qof kastoo caaytamaayo qof caaysan waaye qofka markuu isaga xun yahay ee caay uu ka samaysan yahay afkiisa waxaa kasoo burqanaya keliya caay ma kasoo bixi karto wax wanaagsan maxaa kuu soo haray qofka markii ii sheeg markii lagu caayana caay meelkaa gelayso caayda dhiiranaana laga qaadaa caayda waxa waaye ii sheeg caayda waa lagu socdaa annaga hadda waxa waaye saa u maleynaya waxaanahay fabilka ugu caayda badan soomaalida haddana markiina la fiiriyo waxaanahay fabilka ugu farxadda badan wallaahi maanimo ila ahanbu fabil naga farxad badan inuu jiro soomaali inuu ku jiraan waa ugu caay badan nahay haddana waxaa nahay familka ugu farxadda badan sida anagana weeraadiyaan inay ahaadaan ani iska badaabo dayax ani iska daabo soo ii ixtiraamaya gabadhiisa yarta hadda aaba ma jira gabadhiisa yarta waxay maanta u baahan tahay u sameeynayo oo maxaa bay xanaaqeeda ilaalinayo ma jira intee ma jiro ilmihiina waxa way xaq idinku leeyihiin caanaha iyo maxaa way biilka wax kasta idinku leeyihiin aaba ilowdiinbo qaarkoodna jaaday cunaan balowday leeyihiin qaarkoodna waxay sameeyaan xaas kale bay leeyihiinbo anaga alxamdulillaah waxa waaye iyo wiil kasto waxa waaye ubadkaaga iyo xaaskaaga iyo waalidka inta adduunka u joogtaa adduunka ma laga tagaa ma ogtahay inta aad ku leedahay marka waa inaad madax saarataa marka aad dhimato inay ku dhacdo xaaskaaga alxamdulillaah inuu iga dhintaaba irooneed wallahi way dhacdaa dad markay dhintaan oo dhahaayo oo tabeeninba way jiraan dadan la tabin marka inaan lagu tabin waxaa ka fiican in lagu murugoodo marka wax kasto waxa keenaya waxaa ah wax kale ma ahan caay markay imaado waxaa kaloo meesha taalo wax kale ma ahan caay waxaa waaye waxaa qofka markuu ku caayo horta muxuu kugu caay mataqaanaa horta qofka markuu ogtahay markuu caaysan yahay ma ku caayin karo yacni adi markaa xuntahay maba lagu caayin karo because inta lagu arko xumaantaada iyo falxumadaada iyo caaydaada waaba lagaa aamusaabo caay ma lihid laakiin markaa tahay qof dhinac kasta ka dhammaystiran laazimi waa inaa caay yeelataa anaga caayada waa aaminsana inay jirto caay waxaa hela qofkii nasiib leh waxaa la caayaa qofkii jiro qofka markuu yahay waa in la caayaa taas reality waaye oo qof kasta og maxaa kuu saaray maanta anagana waaba idin sheegaba ana waxaa nahay familka Soomaali markii la dhaho aadaana loo aflagaadiyay aadaana loo caayaa saqiir ee kiiro nagu xadgudbaan haddana waana ka wada qurux badan taas markii meel la dhigana alxamdulillaah waa ka farxad badan nahay waa isku qanacsannahay waxaaba u malaysaaba caaydeena soo caynayaan waxa ay ii sheeg ay sameynayaan kullibo dhiirigelin aan soo diraysin inay tahay صح وبما marka adoogeena ku sii ogaanayna hadda fiiriyo intaan idinka ay jirteen waa joogtiin idinkoo dhan waa caytamaysiin dadka yacni qaar inta caytamaysiin anaga waa soconaa maalimaa dhutine maalimaa joojina waa maya waxaa maanta maaganaha waa sii sameynaale ilaa ay maanta ani asi ganacsi samaysano ilaa maanta Soomaali anagoo joogno Dubai looga soo shaqeeyo Dubai maxaa la dhahaa howlaheena kale ka samaysano waa fanaan haddana
waxa waaye fikirkiisa kaleeta u qarsoon maxaa keenayo isla tashiga waaye alxamdulilah nolosha isla tashiga marka inta asagaadi ku mashquuli lahayd inta asaga dhihi lahayd waxaas uu yahay sidaan uu yahay inta comment cay qoraysid hal mar buug kala feedo sheekooyinka akhriso sheekooyinka taariikhda Soomaaliya soo bar soo akhri wallahi waa mashquul beenta ma wallahi inta qofkaan fiirinaysid hada cay u qoraysid hal mar bax buug kala feedo akhri maxaa la taariikhda wax kale ma aha dadka heerka gaara waxay ama hooyada iyo aabaha u tag nolosha hore iga sheekeeyay hooyada u tag lugaha u riix wax u sameey inta kaaga qeyr badan qofaad aqoon ku lumilayd cayn leed ha marka alxamdulilah waxa waay wax kasto ilaahay ku siisto alxamdulilah la kulay anaga caayb ha noqoto af in laga caayo in qoraalna laga caayo in maxaa la video na loo soo duubo si kasta ay noqoto alxamdulilah aqliga ku yeelana horta wallahi dad fiicanatiin inta qofeena caayis wax ma sameeyaan because anaka markina la caayo ma habeenkaas ani asii wada tashiya sameeyna maxaa sasna loo soo sameeyay maxaa sasna loo soo dhahay yaa cadow jireeyaha okay waa ina cadow iska gijinaa marka ina isla jirna waaya ina gacmaha isqabsano marka alxamdulilah وكاسا marka insha Allah dayaxna amaan idinkaga baahno amaan iyo caay ha dayax waxa waay waalid iyo walaal uu leeyahay qoys jecel u heystaa inta ku filan albaabka marka ka baxaya hal saacadood ka baxaa albaabku bis inta ka baxaya yes ani walaalihii maanta inta maqanaha konton mar la soo waca ma fahanti marka taasna jecel waa meel leegi jecel yahay oo hada albaabka baxaa la dhaho ee tacsiina ka jirto guriga oo umaleysida ku noolahay intaasna waxa waay nasiib lagu helaa mideeda ka Soomaalida waxay yaqaaniin qof intay yani qofka dabeecadiisa ma yaqaaniin wuxuu ma garanayaan laakiin way aflagaadeynayaan biri markii anaga dad badan waana soo mareen horta anaga cafiskeena aad u badan yahay waa cafis badannahay because Ilaahay baa adduunkiisa cafiyo waxa ku soo haray dad badan aragnay marka isbaranoo kale ay soo dhex galaan waxaan dhahayaan والله dad fiicanaatihiin saami idin maleynaynin mideeda kale anaaba dabeecad kululbo anigaaba dab iyo baaziin oo marmarka qaar aaba dabeecadeyda kulushahay dayax laakiin wax lagu caay dayax ma balaan waa miskiin waa qalbi furan yahay waa iska qoslaa farxad meel taala waay war alxamdulillah dhaha waxa waay fanaankiino ilaaha ka dhigay waxa waay dayax waxa waay qof maanta eeds leh ma aan miskiin iska qoslaa iska faraxsan alxamdulillah marka anaga nasiib u yeelanay ana nasiib u yeeshay inaan xaaskiisa noqdo marka waa kaasa insha Allah marka caafimaad idin rajeynayna anigu isku duuban waan mahadsantii insha Allah taala la socday insha Allah duu la yiraahdo ganacsiga cusub ee Farxiyada Boss Lady waxa waaye anaga doo kaasa intina la caayna intina la aflagaadeena fikra keenine hada mideeda kale fikiradu waa badan yihiin waayo ani dhan waa wareere waxaa isleeyahay cream oo soo saartaa waxaa isleeyahay dhar ma soo saartaa bacweyne ma soo saartaa maxaa u sameysaa lagu kala dhigdhiga maskaxda degsa xiyubta marka waxaan sameynay hadda insha Allah qorshaha ugu horeeya waxa waa cabaayadaha qof hooyada sheegay wuxuu dhahay farxiyo waxay u dhisan tahay hooyada waa macallimad iskuul waxa dhashay hooyo wax baratay iyada waa hooyo ana qof hooyo yaqaan ana hooyadii horta waxa waay macallimad waaye macallimad iskuul waaye hooyo waxa waaye laba sano hadda shaqada ay ka fariisatay waa sax bismillah ana sidoo kaleeto intees wax soo bartay bismillah inta arday ee wax bartay hooyadii wallahi waxa waaye hooyadii marmarka qaar ani gabar waxay tiri naag labaad ma ogoshaa dayax ani waa ogolaado asrabo marabi balaa la kuridi ya marka waxa waaye ani hooyadii horta waa ka maseeri jiray moogtiin marka iskuulka isku raacno kale koowaadkii iyo marka yaraa iskuulka marka igeyso markaas waxa dhacday ilmaha ku soo kala ordayeen hooyo markay habsiyaan inuu maseeri jiro waxa dhahay hooyo maxay ilmahan hab ku siinayeen ayaga markaas la hooyo maxaa aan adiga ku dhalay ilmahan maxaa la dhahaa ilmaheyga waa ardaydeedu waaye marka sax waaye fiiri qof kasta da aragtiin cunug kasta tarbiyad leh tarbiyadaas wuxuu asi horta waa loo dhashaa waa sax tarbiyada waalidka aydan waa muhiim أنا هذا هو يدي عايز كده حتى إحنا مكوف كي يصاب عيب أي هذا عامس يا أنا والدين تاني ممكن يقولون هو إما هذا نقول نلا جوجان وكله أنا ضيح وايس إلى الناب هذا حتى يرأوا حنو أفكارك صبحوا صبته هذا كان لو علنا وحس ما برتين وحس ما كهذا ليسين أنا جوا ويني أي ما ده كرنا هذا يا ما بديه كرنا بو I know your mom ما شاء الله على سخرة أو خف هو يدي خانة أنت كجرو صح هو يدي معلمة دواي
ها دي ما أنت قف أقول له أقول قف كل درتي اللي هو سعديه قف كسايا جرت هو ده حويس هو سعديه واي ما شاء الله أنا هويوينكين والله قف كبرتو أنا قابنا نعاب أنا وحباي هويوينكين ما شاء الله الحمد لله هويوين في عنا لين ومحال هاي شيئين aad u fiican oo hooyooyinna jecel ilaa hadeertaan anagoo dad waaweyn hadan ilmo camaleen oo la dhaqmaan oo maxaa la waan la kuulkuuliyaa alxamdulilah of course been wallahi hooy la'aan waxa waay ciil waay hooy la'aanteed ama weynow ama maxaa la dhahaa yaraaw hooy ma laga maarmo hooy laf dhabarta waay nolosha laf dhabarka nolosha waay ilaahay hanu daay waalidiinteena hooy aab ma laga maarmo marka insha Allah waxa waay ducada waalidkana muhiim ah waalidka lagu duceysto qof والدكيس هباري ما بحرص هذا ما هرسنايو ما